بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho inaan aad iyo aad uga xumahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 24 saac ee la soo dhaafay. waxa ayaan darro ah in iyadoo lagu jiro sanadka 2021 oo qof sheegto inuu qabsaday magaalada Muqdisho una sheegay in aysan dawlad ka jirin. waana arin aad iyo aad fool xumo ah iyadoo ay dalka ka jirto dawlad xor ah oo madax bannaan. waxa kale oo ayaan darro ah in ciidamadii mas'uulka ka ahaa ciidamadii qaranka ee geesiyaasha ee u soo halgamay u dhimanayay Soomaaliya weerar lagu qaado oo la taageerayo una ka bilowdo falkaasi xalay dhacay meeshaas. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ilaaliyaan midnimadooda. shacabka Muqdisho waxaan leeyahay waxa loo socdo waa hantidiinni, waa naftiinni, waa guryihiinni in lagu burburiyo. waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalka iyo garashada aad muujiseen inaadan raalli ka ahayn inaad taageertaan wax kasta oo lagu carqaladeynayo midnimadiinna, maalkiinna, naftiinna iyo xoolihiinna. waxaan leeyahay dawladda aan aniga mas'uulka ka ahay ee xukuumadda ah oo aan ra'iisul wasaaraha ka ahay diyaar ayaan u ahay sidaan horey idinkugu sheegay in aan la fariisto qof kasta oo cabasho sheeganaya haddii aan leeyahay mid doorasho, mid amni iyo mid kaleba. waxaan leeyahay qof kasta Soomaali ah xaq ayuu oo dastuuri ah ayuu u leeyahay inuu mudaaharaado, laakiin waa inuu mudaaharaadkaasi noqdaa mudaaharaad nabadeed oo ay ilaalinayaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. raalli marnaba kama noqonay mudaaharaad la soo abaabulay oo ay horkacayaan ciidamo oo ka soo horjeeda ciidamadii dawladda. waa arrin fool xun inaan arrintaas aqbalno dhammaanteen. mudaaharaad hubaysan marnaba kagama jiro meel jabtarka dawladnimadeenna. waxaan leeyahay walaalaha cabashada tabanayow hadday tahay doorasho waqtigeedii waa diyaar. baydhaba ugu dambeysay oo aan guddi farsamo u diray oo 5 maamul goboleed gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe ay halka ku kulmeen 14 qofood waxa ay noo soo diyaariyeen heshiiskaas oo lagu heshiiyey in lagu saxiixdo madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda iyo gobolka Banaadirba magaalada Muqdisho, taasoo soo afjari lahayd in ay doorashadu bilaabato waqtigeedana ku bilaabato. ka ra'iisul wasaare ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa musharax ma ihi, laakiin waxa iga go'an doorashadaas inay waqtigeeda ku dhacdo si xor iyo xalaal ah. qofka shaki qabo ha ila soo xiriiro. waxaan rabaa halkan inaan ka sheego 48 saacadood labadii maalmood ee la soo dhaafay inaan dadaalo fara badan aan geliyay sidii dhibkii dhacay foolxumadii dhacday aan u hakin lahaa. shalay ugu dambeysay waxaan la kulmay duubabka magaaladan, siyaasiyiinta waa la hadlay, guddiyaan u diray, guryahoodii aa loogu tegay in laga baaqsado in ay xabad dhacdo. waa nasiib darro in warkayga la tixgelin waayo, waa nasiib darro in la diiday in layla kulmo, waa nasiib darro in gadaashayda dad ama qof kale laga raadiyo. nabadda gacmaheena walaalayaal ku jirtaa. waxaan aniga idin qaban waayna cid idin ma qabanayso. diyaar ayaan u ahay inaan idinla hadlo, inaan idinla fadhiisto, cabashadiinana aan xalliyo. walaalayaal soo dhawaada. shacabka Soomaaliyeed, shacabka Muqdisho, ogaada waxa lagu gorgortamayo waa maskaxdiina, waa madaxiina, waa caqligiina, waa ciidankiina, waa awoodiina, waa hantidiina. marnaba ha yeelina inay magaaladani naga dudunto. waad garanaysaan nabadda aan haysano maanta, dawladnimada aan haysano maanta, dhibka laga soo maray 30 sano ayay nagu qaadatay meesha aan maanta taagannahay inaan soo gaarno. ha ka yeelina, aniga ha iga yeelina, cid kalena ha ka yeelina inay idinka dudumiso. anigana diyaar uma ihi. soo dhawaada. waxaan leeyahay xasiloonida ha la muujiyo. soo dhawaada. waxaan leeyahay wada shaqaynta ha la muujiyo. soo dhawaada. ciidamadiina amniga la shaqeeya, garab istaaga. soo dhawaada. cadow ayaan leenahay gudo iyo dibad, ka hortaga. soo dhawaada walaalayaal siyaasiyiinta walaalahayga ah ee Muqdisho joogo.
diyaar ayaan idin ahay. waa ku celcelinaya hadalkaas, waxaan ugu celcelinaya wax kale maahane inaan diyaar idinla ahay, inaan idinla fariisto geed dheer iyo geed gaabanba, oo aan waxa aad tabanaysaan aan xaliyo. soo dhawaada, waa mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa xasiloonida hala muujiyo. waxaan waa dalkeenni, waa magaaladeenni. soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.